oo qofka xun oo ka shaqeynaya Soomaaliya inay meeshii taagantahay sii taagnaato aan la wada dagaalno kulligeen oo aydan nagu fiirsan anaga kaliya oo aydan naga dhigin dad difaacanaya positionadooda oo idinka shacabka Soomaaliyeed iyo miidiyaha khaasatan ay ka hor yimaadaan yiraahdaan ninka waa xun yahay dadkan fursad hala siiyo macnaheedu waxay tahay qofkaasi waa u aqal celinaynaa marka kuwa kale raggaas waa rag waaleeyo nagu dhex jira laakiin laga yaabo inay dan u arkaan ama ganacsi ha ka gasho ama siyaasad ha ka gasho ama waxyaabo kale ha ka gasho dan u arka inay Soomaaliya adduunka looga yaqaan meel dulli ah dad xun ay degan yihiin dan u arka laakiin ma fiirinayo kaasi dantiisa maalintaas nool yahay calooshiisa fiirinayo ma fiirinayo mustaqbalka caruurtiisa ma fiirinayo waxa laga yaabaa ninkaas caruurtiisa iyo reerihiisa inay banaanka ku maqan yihiin laakiin dhibka uu halkan la joogo qolada saan dantu ugu jirto xaalad Soomaaliya saan ahaato saan waa ceeb magaca Soomaaliyeed runtii waxaana saaran ceeb aad u foolxun ceebtaas waxaan ka dhaxalnay intii uu dhibka jiray oo aan ku macnayn karin waxaan ku dagaalanay waxay ahayd waxaan loo yaqaanaa dad xun inaan nahay ilaahay wuxuuna siiyey ma aragno wanaageeda ilaahay wuxuuna siiyey khayraadkuna siiyey ma aragno ilaahay wuxuuna siiyey oo ah weli abtiis inaan nahay ma aragno ilaahay wuxuuna siiyey inaan nahay dad islaan ah oo sunni ah ma aragno aan ku xamdi noqno ilaahay waxaan haysto waa carada ilaahay waay ilaahay aqliguna siiyey aqligaas inaan ku shaqeeyno oo wixii xun kaga leexano wixii fiicanna aan hore ugu soconno ilaahay aanu noqonno qolada marka dhibka ku haysta Soomaaliya waxay gashay dimuqraadiyad waxyaabaha ugu fiican hadda aan adduunka uga horeyno waa taas waxaad arkaysaan laga soo bilaabo artan khayr Allah si madaxweynayaashii la soo dhaafay si nabadgelyo ah xukun ku wareejiyeen waana horumar aan gaarnay waxaan rabaa inaan sii xoojino laakiin waxyaabaha naga dhiman waxaan rabaa meel in line aan la gudbay inuu jiro oo ah inaan isaga mid nahay dalkan inuu nabad helo ummadeena ay nolol helaan inaan isaga mid nahay oo qofka xun oo ka shaqeynaya Soomaaliya inay meeshii taagantahay sii taagnaato aan la wada dagaalno kulligeen oo aydan nagu fiirsan anaga kaliya oo aydan naga dhigin dad difaacanaya positionadooda oo idinka shacabka Soomaaliyeed iyo miidiyaha khaasatan ay ka hor yimaadaan yiraahdaan ninka waa xun yahay dadkan fursad hala siiyo macnaheedu waxay tahay qofkaasi waa u aqal celinaynaa marka kuwa kale raggaas waa rag waaleeyo nagu dhex jira laakiin laga yaabo inay dan u arkaan ama ganacsi ha ka gasho ama siyaasad ha ka gasho ama waxyaabo kale ha ka gasho dan u arka inay Soomaaliya adduunka looga yaqaan meel dulli ah dad xun ay degan yihiin dan u arka laakiin ma fiirinayo kaasi dantiisa maalintaas nool yahay calooshiisa fiirinayo ma fiirinayo mustaqbalka caruurtiisa ma fiirinayo waxa laga yaabaa ninkaas caruurtiisa iyo reerihiisa inay banaanka ku maqan yihiin laakiin dhibka uu halkan la joogo ma fiirinayo ninkaas ilmaha awoohu u yahay ma fiirinayo waxa u daran kaliya maanta iyo laga yaabo inuu hinaas ka qabo qofkaas meesha fadhiya ama dan dhaqaale uu meesha uu ka waayay ama xil uu ka waayay marka waxa weeye xaaladda Soomaaliya ku jirto meel fiican ma aha waa meel adag waxa la rabaa kulligeen inaan u wada istaagno sidaan uga bixin lahayn xaaladda Soomaaliya meesha ku jirto oo aan horu marin lahayn waa saan sheegay waa dimuqraadiyad hore u soconaysaa dadka naga dambeeya waxbaan u qabanay meeshaas ka sii wadayaan ay ugu imaanayaan dawlad iyo dad sharaf leh